xaalad adag ayaa Ronaldo ku haysatay kooxiisa Manchester xilliga uu marayo marxaladii ugu adeeg waana waqtigiisii ugu dheeraa uu gool la'aan yahay laga soo bilaabo 2008 ilaa 2009 kadib markii Burnley soo bandhigay kulankii Burnley habeennimadii Talaadada laacibka wuxuu buuxsantay kulankiisii shanaad oo xiriir wax gool ah uu dhalin waa si ka duwan sidii laacib kor looga bartay dib ugu soo laabashadiisii laacibka dib ugu soo laabtay masrax riyada maana noqon sidii la filayay kadib markii xagaagii hore ka soo boqolay kooxda Juventus dad badan ayaa qisooyin badan maskaxdooda kasii suuraysanayay oo islaha wuxuu qayb muhiim ah ka noqon doonaa in kooxda Manchester dib ugu soo laaban doonto wadadii koobka muddo 4 sano ah ay kooxdu dhadhamin rajada weyn inay hirgasho iska badaayay kooxdu waxay maraysaa hoos u dhac isbuucyadii ugu dambeysay riyadii quruxda badneyd waxay isku bedelaysaa mid argagax badan Manchester hadda waxay ku jirtaa kaalinta shanaad ee liiska kala sareynta horyaalka Ingiriiska waana heer aad uga hooseeya booskii laga filayay 3 dhibcood oo qura ay Tottenham u jirtaa oo kaalinta toddobaad hadda fadhida iyadoo waliba jirta in 3 kulan ay baaqo yihiin arrintan oo ka dhigan in kaalinta shanaad ee qatar ugu jirto oo gool dhow lagala wareegi karo